waxaan rabaa inaan idin sheego haddaad tihiin dhallinyarada dalka inaad gaarteen hadaf la yiraahdo inaad dhisataan dalkiina waxaana idin dhisaya dal shisheeye idinma dhisayo waxaa dhisanaya idinka waxaadna ku dhisanaysaan wax la yiraahdo isxilqaan عاديستان مدحوين محمد عبد الله فرماجو ورنتي أحمد حويناه الجمهورية يعني قوى الرجال حسن على خير روزي كلا شقينا ويحورنا وعن رواينا هالكم يقوم هذا العليو أبوان مارة ورنتي حول بدن وقت بدن قليل بوغن وقعد لا يملكيه بدل كين إليه يندغيره waxaan mar labaadina halkan idinkaga sheego in abwaanka waxa uu sheegay aad ka dhabayn kartaan ama ay suuro gelin karto ficilada idinku aad samaysaan dalkeenu maanta uma baahna wax la yiraahdo dib u socod ama isqabqabsi waa inaan gacmaha isqabsanaa oo dawlad dhisnaa haddii aad maqli jirteen Soomaali oo lugaha isku dhagan maanta waa laga baxay gacmaha nisaysanaa waxaan rabaa inaan idin sheego mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku faraxsanahay inaan idin hortaaganahay runtii anigu ka xasan ahaan waxaan idin sheegayaa markii ugu horeysay waxaan ku dhashay aniga burbur iyo dawlad la'aan waa markii ugu horeysay aan arko dad ummada intay isu yimaadaan goobihii danta guud ee ka dhaxeeyay wada dhisanaya heesihii gubaabada ee qiimaha badnaa ee qaranku lahaan ay u baxayaan runtii dareenkaygu way bedeshay waxaan idin sheegayaa mar kasta inaan garabkiina nahay waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadceliyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo runtii anigu shakhsiyan aanan isarag laakiin aan ku faraxsanahay waxqabadkiisa waxaa dhacday goobo badan oo anigu joogo ay ka mid yihiin goobaha dhalinyaradu ay isugu timaado xilliyada ay firaaqada leeyihiin sida Pizza House habeenkii uu tagay waxaan ka mid ahaa dadkii halkaas joogay waqtigooda lecture-ga ama waqtiga firaaqada ku qaadanay runtii waxaan aad ugu faraxsanaa qaabkii uu dhaxgalay dhalinyarada iyo dhalinyaradeenii oo ay ka muuqatay baahi ay u qabaan qarankoodii